wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in weerar cirka lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee magaalada Sanca oo ay gacanta ku hayaan Xuutiyiinta ayaa ku eedeeyay dowladda Sacuudiga inay fulisay duqeymaha inkastoo Riyadh aysan weli si rasmi ah u xaqiijin ama u beenin wararka. Sida wararka hordhaca ay tilmaamayaan, weerarka ayaa ka koobnaa duqeymo dhowr ah waxaana rumaysan yahay in bartilmaameedkiisu uu ahaa diyaarad ay leedahay shirkadda Main Air ee Iran, taasoo la sheegay in ay ka soo duushay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran kuna sii jeeday Sanca iyadoo siday wafdi la xiriira maamulka Xuutiyiinta. Wararka ayaa sheegaya in gantaalada lagu beegsaday qeybaha muhiimka ah ee garoonka, gaar ahaan dhabaha ay diyaaradaha ka kacaan kana degaan, si looga hortago in diyaaradaasi ay si nabad ah uga degto. Ilo wareedyo ayaa sidoo kale sheegay in shaqaalaha iyo dadkii ku sugnaa garoonka ay bilaabeen inay ka baxaan goobta kadib digniino amni oo la bixiyay. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa soo saartay digniin degdeg ah oo ku socota dhammaan dadka ku sugan garoonka diyaaradaha ee Sanca, iyadoo ku amartay in ay si dhaqso leh uga baxaan goobta maadaama ay jirto cabsi laga qabo weeraro kale oo dheeraad ah. Weerarkan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan xiisadda gobolka iyo eedeymaha loo jeedinayo Iran ee ku aadan taageerada ay siiso Xuutiyiinta. dowladda Yemen iyo qaar ka mid ah xulufadeeda ayaa hore u sheegay in duulimaadyada u dhaxeeya Tehran iyo Sanca loo adeegsan karo gudbinta saraakiil, qalab iyo taageero kale oo military, halka Iran iyo Xuutiyiintu ay ku adkeysanayaan in duulimaadyadu yihiin kuwa rayid ah oo bani'aadanimo. ilaa hadda lama shaacin khasaaraha rasmi ee ka dhashay duqeymaha, mana cadda xaaladda diyaaradda Main Airline ee la sheegay inay bartilmaameedka ahayd. Sidoo kale, dowladda Sacuudiga weli kama aysan soo saarin wax war rasmi ah oo ku saabsan eedeymaha loo jeediyay. xaaladda magaalada Sanca ayaa weli ah mid kacsan, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda iyo sidoo kale maalmaha soo aadan ay soo baxaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha, ujeedada dhabta ee weerarka iyo jawaabta dhinacyada ku lugta leh.